degmada Dandan ee gobolka Cayn waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shaqaqo in muddo ka taagnay deegaankaasi taas oo ahayd gacan ku dhigida hore dil u geystay waxaana madashii lagu kala wareejinayay ninkaasi ka soo qayb galay Garaad Ali Yuusuf Cabdi iyo xubno kale oo kamid ah waxqaradka beerahaasi ay shaqaqadu dhex martay ana xukunkii maxkamadda sharciga ah kaga dhawaaqay halkaasi Sheekh Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Saciid oo ah garsooraha maxkamadda degmada Dandan intaas kadibna waxaa halkaasi ka hadlay garaadka beesha Samakaab Jaamac Siyaad oo isagu aad u amaanay sidii hawshaasi nabad loogu soo xaliyay waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanta oo isniin ah bisha sagaalaad ay 7 tahay 2015 deegaanka Dandan ee gobolka Cayn maxkamad shariicada islaamka waafaqsan oo lagaga dooday dil ka dhacay dhawaan deegaanka Shululuxeed oo uu ku dhintay Alle ha u naxariistay Axmed Xirsi Maxamuud markii ay dhageysatay maxkamaddu dooda muddaciga iyo jawaabtii muddaca calayhiga markii uu qirtay gacan ku dhiigle Cabdirasaaq Ibraahim aw Jaamac inuu si bareer ah u dilay Axmed Xirsi Maxamuud isagoo qaangaar ah oo caaqil ah oo cid khasbaysay aanay jirin waxay maxkamaddu xukuntay kow inuu qisaasto si sharciga waafaqsan weliga ninka la dilay oo ah aabaha dhalay Xirsi Maxamuud weliga ninkii dhintay oo ah aabihii Xirsi Maxamuud deeriye waxaa kale oo maxkamaddu cadaynaysaa una sheegaysaa weliga maqtuulka oday Xirsi inay u bannaan tahay inuu ku bedesho diyo ama mag iyo inuu cafiyo intaba wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waxa weeye aniga magacayga waxa la Garaad Ali Yuusuf sideedaba anigu nin siyaasadeed mihi waxaan ahay isim dhaqanka oo aan siyaasad ku milmin oo aan aadin laba arrimood baa waxaan rabaa inaan ka hadlo oo xagga isimada ku saabsan inay isimada u soo noqdaan dhaqankii loo doortay ee Soomaaliyeed ee soo jireenka ah inay u soo noqdaan oo ay ka dhex baxaan siyaasadda haddii ay u soo noqdaan sida taas oo kale ay u qaban karaan wax walbana uga hawl yaraan karaan laakiin haddii ay siyaasad iyagii dhex galaan oo siyaasadii ka dambayso waxba ma hagaagaan kor un bay waxaana u kacdaa heer Soomaali maanta laguma dhaqmi karo sharci kale oo midaniya laguma dhaqmi karo diinta islaamku ma lagu dhaqmi karaa iyadana wax lagu xalin karaa marka isimada waxaan ku boorinayaa inay siyaasadana ka noqdaan ay diinta islaamkana xoojiyaan dadkana ay ku dhaqaan ugu kala guraan hadday dhiig tahay iyo hadday dhaqan tahayba si wanaagsan oo ay u habeeyaan iyagiyo culimada wada jira taasaan kula dardaarmaya culimadana waxaan kula dardaarmaya inay sida nimankaas oo kale maanta hawshaa qabtay ilaahay khayr ha siiyo si wanaagsan oo hawl yar oo aan khilaaf lahayn ayay ku dhameeyeen kuna soo dhaweeyeen muddo yar ay ku qaatay wuxuu hadday siyaasadba ku jirin waxaad iska hawl yaraatay ilaa waa shareecay marka culimada waxaan ku boorinayaa inay guntiga dhiisha iskaga dhigaan oo hawsha ay haddeer wadaan laabaan oo iyaga laftigooda siyaasadda ka baxaan ay u soo jeestaan inay dadkii hagaan oo diinta islaamka ku hagaan taasay iyaguna liibaan adduun iyo aakhiraba ku helayaan iyo dadweynuhuba intaasaan iyagana kula dar وسلام عبد الله عبدي راديو TV SBC degmada Dandan ee gobolka Cayn